Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akhyaarta ku xiran janalka, waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Waxaan halkan idinku soo gudbinayaa taariikh nololeedkii iyo waxqabadyadii dahabiga ahaa ee Al-Sahraawi. Waxa uu ka mid ahaa dadkii saamaynta weyn ku yeeshay ummadda Islaamka waqtigii dahabiga ahaa ee soo maray ummadda Islaamka iyo waqtigan haddeer la joogaba. Waxa uu ummadda Islaamka uga tegay taariikh anfacday jiil walba oo ka mid ah ummadda Islaamka. Waxa uu ahaa gabyaa, aqoon-yahan, qoraa, waxaana uu ku takhasusay cilmiga kimistriga iyo cilmiga caafimaadka. Daawade, haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato janalka, like saar, subscribe na saar. Haddii aad hore noola joogtayna aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Magaciisu waa Abu Al-Qaasim Khaliif ibnu Al-Cabbaas Al-Sahraawi Al-Nasri, loona yaqaano Al-Sahraawi. Waxa uu ku dhashay magaalada Sahra ee u dhow magaalada Qurduba ee dalka Spain. Waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 324 ee Hijriga, kuna beegnayd 936 ee miilaadiga. Al-Sahraawi waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee si faahfaahsan uga hadlay xanuunka kansarka, waxaana uu xal uga dhigay in la qalo, waana tan ilaa iyo haatan la adeegsado. Waxa kale uu daawo u soo saaray madax xanuunka. Al-Sahraawi intii uu ahaa dhakhtarka, waxa uu sameeyey qalliino badan oo isugu jira kansarka, kaadi haysta, iyo kuwo kale oo fara badan. Al-Sahraawi waxa uu ka soo jeeday qoys Ansaar ah oo ka yimid Carabta. Waxa uu bartay caafimaadka, waxaana uu ku takhasusay qaybta qalliinka. Waqtigii uu dhameeyay waxbarashada, waxa uu ku biiray cisbitaalkii ku yaalay magaalada Qurduba, halkaas oo uu ku bartay daawooyinka iyo qalliinka. Al-Sahraawi waxaa maskaxdiisa ka soo maaxatay inuu sameeyo qalabka wax lagu tolo iyo qalabka wax lagu qalo. Waxa uu lahaa khibrad gaaraysa 40 sano oo dhanka caafimaadka iyo dhanka qalliinka isugu jirtaba. Buugaagtii uu ka qoray dhanka caafimaadka waxa ugu caansan buugga lagu magacaabo التسريف لمن أعجز عن تعريف. Al-Sahraawi waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee buug ka qora caafimaadka. Weliba waxa uu buuggaas u sameeyey chapter, waxaana uu si faahfaahsan uga hadlay daawooyinka, qalliinada kala duwan, iyo qalabka wax lagu qalo iyo kuwa wax lagu tolo. Eebbaha u naxariistay, waxa uu dhintay sanadu markay ahayd 404 ee Hijriga, kuna beegnayd 1013 ee miilaadiga. Al-Sahraawi intii uu ku jiray dhakhtarnimada, bay'adii uu la noolaa waxa ay u qaateen in uu samaynayo Al-Sahraawi wax indho-sarcaada, balse xaqiiqadu midaas way ka duwaneyd oo Al-Sahraawi waxa uu ahaa qof ku takhasusay qalliinka iyo caafimaadka iyo qaybta daawooyinka. Insha Allah waa inoo iyo muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.